waxaynu maanta filaynay munaasabadan inay kala soo qayb galaan dowladda federaalka Soomaaliya madaxdeeda ugu sareysa waxaan anigu la hadlay oo afkayga kula hadlay madaxweynaha Soomaaliya oo aan u sheegnay inaanu diyaarinay inaan meeshaan garacad yiraahdo aanu ka dhagaxdhigayno deked oo ay tahay taariikhda markii ugu horeysay geeyga Soomaaliyeed dadka shacabka inta isu tagaan inay hidisaan inay ka dhisaan hantidoodina ay ku bixiyaan uu soo dhaweeyay waa tashanayna uu yiri waa igu soo celiyay wuxuu ugu yiri waxa idin imaanay ra'iisul wasaare runtii nasiib darro ra'iisul wasaare Puntland buu joogaa meelaan ina ka fogeyn buu joogaa إنما إيمان مات أربع وحنا كنت باقي الله ما أصل عليه إن يريد دونان صار الوطن عنه أو يعني تذكر دونان وعلى إيجاد شيران الليل وهذا يقع وتاريخ رئيسنا بوغاك بدن laga qabay wuxuu aan ku aanay xagaa dhowrsadooda habeen isagoo guureynaya buu Axmed u arkay jilibku mutay warankiisii uu diyaarsaday sidoo halka u fadhiyay waagi uu bariyay mise wuxuu arkay waagid وتجدكي وأستعين وجدكي والله وجدكي هم وحنا كلوني مسوحها النقط مسوحها لون غندم وحنا كلوني واحد وحنا نقطة جد ولما كنت الله لا يبان وحنا لون غندم نقوله madaxda aan halkan ku casuumayay waxaan u haysanay madax qaran oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan u dhaxaysa sidaan moodaynay ma noqon laakiin waxaan isku haleyn doonin iyagana intaasaan leeyahay marlabaad waa idin salaamayaa إن شاء الله مناسبة كتبتنا وعن سوء عندنا حديث هاي المو إلى أن كبر إلى فريتان كذا